Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada harka Betis iyo casharadeenii Get Connected ka ahaa. Marka waxaanu idin dhigi jiraa anigu Photoshop-ka waliba qaybta basic Photoshop-ka oo sida toolskiisa loo isticmaalaa. Marka maalintii ugu dambeysay waxaanu baranaynaa pen tool-ka oo aynu dhiganaynaa qaabka uu shaqeeyo pen tool-ku hadduu shape noqdo iyo hadduu parts noqdoba. Marka maanta waxaanu doonaa pen tool-ka waan ku soo celin doonaa mar labaad laba cashar baan ka samayn doonaa kan iyo mid kale si aynu pen tool-ka u sii dhex galno. marna aynu fahanno parts-ka marna aynu u fahanno shapes-ka oo labaduba xagga sare inoogu yaala. marka intaynaan casharka qaadan arday kasta waxa laga rabaa inuu magaciisa oo saddexan comment-ga xagga hoose ku qoro si uu loo garto inuu joogay oo casharka qaatay. marka saasan registration-ka ay ardayda lagu saxaya. marka make sure inaad hoosta magacaaga iska saxdo. way aynu soo noqdo marka casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay pen tool-ka. pen tool-ka marka wuxuu ka kooban yahay pen tool iyo freedom pen tool iyo curvature pen tool iyo saddexdaas oo kala ah anchor board-ki, delete-ki iyo convert-ki. marka waynu eegi doonaa afartaba saddexda sare eegi doonaa. marka pen tool-ka marka doorato xagga sare wuxuu ku leeyahay wax loo yaqaan path iyo shape. marka labada qaybood buu ku shaqeeyaa. marka labada qaybood bayna kala fahnayn way muhiimsan. marka qaybtan dhigana paths weyn maanta oo loo isticmaalo selectionska si background wax looga jiro. marka pen tool-ku bari Photoshop-badii horena ku jiri jiray oo pen tool-ku caan buu ahaa. marka 5 reason oo pen tool-ka aad u baahan tahay isticmaasho halkan kugu soo qoray. marka ka koobaad waxa weeyaan waa most accurate way to create cutout. marka aad shay background ka jarayso adag amba shape kala duwan leh qaabka ugu fiican waxa weeyaan waa pen tool-ka. marka pen tool-ku waxay sameeyaan wax loo yaqaan path bay sameeyaan oo aan dhigi lahaa halkan pen tool-ka markaad gasho xagga sare path buu sameeyaa. marka paths-kuna waxay ku save gareysmaan halkan. so path 1 path 2 path 3 path 4. marka paths-kaasi hadhow markaad mid samayso mid kale la samayso waa editable. kulba ka doontaa sidii layer-ka ku noqon kartaa deetana xafad ka bedeli kartaa. way marka option kalena waxa weeyaan save your paths-ka xaggan kugu save gareysmaan. marka paths-ki waxaad u bedelaysaa selection make accurate selection from paths-ka samaysay. marka hore paths-ku selection ma laakiin selection baad ka dhigaysaa. selection-kiina hadda waxaad u isticmaalaysaa masking. marka shimbirta yar baynu example ahaan u qaadan doonaa. marka hore laakiin waxaan fahmaynaa pen tool-ku siduu shaqeeyo. pen tool-ku wuxuu shaqeeyaa waxa weeyaan waa points. so dhibic baad sawiraysaa another dhibic kale sawiraysaa another dhibic kale. marka points-ka waxa xiriirinaya waa maxay lines ba xiriirinaya. muhiimadana waxa weeyaan inaad bartii aad ka bilowday aad ku soo noqoto. that's rule-kii weeyaan. marka points-kaas aad fahmaysaa. marka kaas waa kow. marka paths-ku imika igu save gareysmay waan iska delete gareynayaa. yes marka points-ku marka samayso aad point-ka kala taabato haddii aad click adoon sii deynaa saa u yar aad xajiso mouse-kaaga saa u dhaqaajiso waxaad samaynaysaa wax loo yaqaano handles. marka handleskaasi waxay kaa caawinayaan drawing-kii path-kii labaad halku tegi lahaa bay kaa caawinaysaa. marka depends on shape-kaad sawiraysa ku xidhan tahay. marka click and drag baad samaynaysaa. click-taad xajinaysaa saas oo drag gareynaysaa. waxaa kaloo isticmaali kartaa control oo aad points-kaagii aad sawirtay aad ka hagaajin kartaa haddii aad wax ka bedelaysid. waxaa kaloo isticmaali kartaa alt oo aad carabkan aad kulba saa doonteed aad ugu jeedin kartid. marka shortcuts-kan waxa weeyaan waa control oo aad ku maamulaysid maxay ahayd points-ka aad hore usoo sawirtay iyo alt oo aad ku maamulaysid carabkan yar ama handle-kan yar san u samaysmay kulba saa maamulayd loo. marka labada option waa very important. marka points waxa weeyaan simple curves oo ah inaad laba point oo size ka soo jeedo samayso amba inaad samayso convex curve oo aad saa u samayso haddana saa u samayso that's called convex spiral. way aan iska delete gareeyaa. marka casharkeeni baynu imika shimbirtan isku dayno inaan background ka jarno. marka waxaan tegayaa pen tool-kii waxaan dooranayaa ka u sarreeya xaggan sarena waxaan tegayaa path. halkan option-kana waxaan dooranayaa one thickness auto add layer-na waan /add layer-na waa inaan automatically sax u waayahay. marka hoostan ka soo bilaabayaa soo yara dhaweysanaya control plus space-kuna wuxuu soo saaraya gacantaada. so space dad qabato gacantaada ku soo saaraya deetana you can mouse-kaad click-taad xajinaysaa deetana saad ugu dhex soo socoto. way click baan ka siinayaa. click-na xaggaasan siinayaa. marka imika saad wada arkaysaan waxaan sameeyey point-kii koobaad. waayahay space baan qabtay gacantayda ba soo baxday. carabkii baan xaggaa u celinaya markaa deetana sanaan xaggan ugu soo celinaya haddana good. haddana soo resume garanayaa haddana point-ka labaad masaa okay. sawirkani markaa wixii idigu jiraa sawirkani description-ka idigu jiraa. haddaad click adigu intaad ka soo baxdaa ka aad click siiso point kale kuu sameynaya control baad qabanaysaa deetana sidaas aad ugu macaanaysaa. okay good.
another point kale oo aad isleedahay waayahay soo yarsamire alt qabo deetana dib yar noqo good marka saan u diregoranay wad arkaysan soo ma marka arka control bad qabanaysa sad pointska hadii aad meel yar qaldan aad dhigtay aad ugu soo celisid altna sad carabka yar oo hagaajisid bad alt qabanaysa control soo yardishid alt sad control no qaban kartaa alt bad qaban kartaa saa yar macani line-ka ugu hagaajiso good marka idinku waxa la idinka rabaa sawirro kale inaad soo sameysaan kan markaad ku practice gareysaan okay space bad qabanaysaa si aad point-ka hadii aad meel qaldan aad dhigtay aad ugu aad meesha doonaysid uga dhigatid good alt bad saa qabanaysaa saad ugu yara toosinaysaa halka yar baad soo toosinaysaa alt bad qabanaysaa markaa si carabkan aad dib ugu celiso halkaa halkaas ugu daro garanaysa waay maskinku waa tool fiican haddaad barato pen toolkan ujeeda haddaad barato markaa imika macasa selection ahaan baan isticmaalaynaa berina waxaan isticmaali doonaa inagoo loogo ku sameynaynaa loogo aynu ku develop-gareyn doonaa loogo yar soo yara dhaweysa halkaa si aad u aragto okay marka sawirkaaga aad u fiirsanaysaa aniga hore idin lahaa pen toolku waqti buu qaataa markaad baranayso at the same time marka imika bartii aynu ka bilownay markii hore ayaynu ku soo khatimaynaa markaasuu baadkeen close noqonaya inta kale close maaha markaan soo yarjeedi control qabo saadaka in yar ugu celiso okay marka pen toolku waa inaad bartii xeerkiisu waxa weeye inaad bartii aad ka bilowday aad ku soo celiso just saas ma iska leeyahay marka meesha banaan iska sii maraya laakiin halkii aan ka bilaabay marka u fiirso markaad bartii aad ka bilowday joogto mouse-kaaga wuxuu yeelanayaa xagga yar dambe wuxuu ku yeelanayaa circle yar marka imika baadka waa kaca kugu save garayso marka laba jeer baad kala garan kartaa magaca waad ka bixi kartaa shimbir baad ku qori kartaa waa hadii aad baadska ku jirto deetan selection uga dhigaysaa marka control 0 baan taabtay si zoom tiisi u noqdo control click baad siin kartaa amba halka yar baad ku dhufan kartaa halka yar hoose oo kugu qoran tahay maxay load path as a selection load path as a selection markaad ku dhufato click waa ka selection isku bedelay ka layer-kii baan ku noqonayaa sawirka baan dooranayaa deetana halka yar hoosaan dooranayaa add a mask layer automatically wata background kana jaray layer cusub baan samaysanayaa just waxaan ku qorayaa background baan ku qorayaa hoosaan soo dhigayaa deetana waxaan tegayaa edit fill deetana colorkii maan dooran colorkaan doorto say that color baan doortay deetana halkan foostadii ka soo qaatay boom way marka pen toolku aniga idin sheegay imika si fiican baag marka waa the most accurate way to create a cutout waa qaabka ugu wanaagsan ee aad cutout u sameyn karto background waa jiri karto marka hore waxaad tagaysaa pen toolka deetana xagga sare path baad dooranaysaa deetana markaas sawiraysaa pathki deetana xaggii pathka tagaysaa shimbirta dooranaysaa deetana halka yar path selection kii baad ku dhufanaysaa imikadan oo ka way hadii markii dhawto waa kina lahaa pathskaaga waa editable haddaan imika laba jeer kala gareeyo amba aan tago aan qalankayga tago amba waxaan jeedaa mouse-ka yar tago direct selection aan doorto oo kuma pathskayga yar haddaan imika pen toolka ku noqdo markaa waan delete gareyn karaa point kale aan ku dari karaa control baan qaban karaa
deetana point ka kala aan ku darkan marka editable wax kale looga jeedin waxa weeyaan parts-kaagu markasta waa editable way ashkan marka maanta intaas ku yaqaanaya sawirada kale sawirkan waan soo raacinaa waxaan soo hoos gelinay YouTube-ka description-ka idinkan waxa laga raacay background kale saas oo kale sawir kale oo aad ka hesheen background-ka qalinka kaga jirtaan sidee aad u barataan parts-ka birna waxaan qaadan doonaa marka waxa loo yaqaano pen tool-ka oo shapes aynu ku sameeyno at the same time waxaan qaadan doonaa curvature pen tool oo kan kala ka yiri doono xogaa maalinta hore yar baan ka taataabanay laakiin waa inuu ku yar noqon doonaa marka logan ku sameyn doonaa logan amba shape yar logan ku sameyn doonaa marka waan eegi doonaa sigma saynaan facan inteenu 10 lamada ku kulmi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh